dad badan waxay yaqaanaan sida wax loo bilaabo laakiin dad yar ayaa yaqaanaa sida loo dhammeeyo ee hawsha run ahaantii loo fuliyo guusha ma go'aamisa fikrada aad haysato waxaa go'aamisa waxaa hawsha run ahaantii aad dhammayso haddii aad mar walba bilowdo oo aad joojiso riyadaadu weligeed ma noqon doonto run ahaantii xaqiiqo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat kusoo dhawaada gofga podcast magacayga waa ciid maanta waxaynu koobaynaa mid ka mid a buga run ahaantii ugu faa'iidada badan ee horumarinta nafta finish what you start oo uu qoro run ahaantii qoraaga peter holly bugani wuxuu run ahaantii ka jawaabaya hal su'aal oo dad badan run ahaantii ay haysato maxaan wax u bilaabaa laakiin aan u dhammayn laayahay waxaa laga yaabaa inaad run ahaantii inaad bilowday akhrinta buugag barashada luuqadaha ganacsiga jimicsiga ama mashruuc laakiin dhowr maalmood ama toddobaad kadib waad joojisay buugani wuxuu run ahaantii ku barayaa sida run ahaantii loo dhiso is-edbinta nafta self discipline joogtaynta iyo run ahaantii adkaysiga haddaba haddaan guda galno qodobkii ugu horeeya dhiirigelintu waa run ahaantii waa kumeel gaadh waa muhiim dad badan waxay sugaan inay dareemaan dhiirigelin laakiin qoraagu wuxuu leeyahay dhiirigelintu way timaadaa wayna tegtaa haddaba waxaa guusha keena run ahaantii waa caadada run ahaantii wanaagsan ee joogtaynta ee ma aha run ahaantii dareemka aad dareemaysid qofka guulaysta horumar sameeya wax soo saar sameeya shaqadiisu markasta oo run ahaantii uu niyad markasta run ahaantii inuu tallaabso u dhaqaaqo yuu run ahaantii dareemaya ee ma sugo run ahaantii inuu niyada run ahaantii uu ka dareemo horta dhaqaaq kadib ay iman doontaa dhiirigelintu iyo dareemkan motivation ee horta bilow wuxuu sheegay xitaa markii uusan run ahaantii uusan rabin markii aysan rabin shaqo way bilaabaan dadka horumarka sameeya haddaba maxaa ka dhigay qofka qof run ahaantii aan quusan is-edbintu waa furaha guusha qodobkeena labaad buugani wuxuu leeyahay self discipline ayaa ka muhiimsan motivationka is-edbintu waxay ka dhigan tahay inaad qabato shaqo muhiim ah xitaa haddii ay adag tahay qofkas run ahaantii wuxuu riyuu leeyahay qofkaasi uu riyoon karaa qof kastoo uu riyoon karaa laakiin qofkasi male run ahaantii adkaysiga uu ku sii socdo haddaba laakiin maxaa mashruucaaga badanaa run ahaantii fashiliya qodobkeena saddexaad ka teg caadada run ahaantii dib u dhigista dib u dhigistu waa cadowga horumarka kaa hor istaagaya has oranin beri ayaan qabanayaa isniinta ayaan bilaabayaa bisha dambe ayaan run ahaantii bilaabaya laakiin beri badanaa run ahaantii ma timaado bilow maanta xitaa tallaabo yar ku noqotay xitaa haddii run ahaantii ay tahay hal tallaabo oo yar marka aad bilowdo haddaba sidee loo sii wadaa hawsha iyo mashruuca doonaysid qodobkiina afraad hadafku run ahaantii u kala qayqayb run ahaantii tallaabooyin yaryar haddii hadafku weyn yahay ha ka baqanin u kala qaybi qaybo yaryar kala jebi haddii aad rabto inaad akhrito buug 300 oo beja orani maanta waan dhammaynayaa akhri 10 page joogtayntu waa muhiim xaggan joogtayntu waxay ka xoog badan tahay degdega laakiin maxaa jira waxaa run ahaantii hal caado oo kale oo muhiim ah qodobkeena shanaad ka fogow run ahaantii mashruuca aan faa'iido lahayn qoraagu wuxuu leeyahay waxyaabaha badan ee aynu samayno maaha muhiim telefoonka run ahaantii aad xoog isticmaalaysid baraha bulshada fiidiyooyinka aan tiktok aan dhammaanayn waxay cunayaan run ahaantii wakhtigaagii iyo tamartaadii run ahaantii cunayaan haddii aad rabto guul baro in aad tiraahdo maya haddaba dadka guulaysta ee wax soo saarka sameeya maxay wadaagaan qodobkiina lixaad joogtayntu waxay ka muhiimsan tahay hibada sabab dad badan waxay leeyihiin hibo laakiin hibadu keliya kuma filno run ahaantii inay wax qabtaan sababtoo ah qofka maalin kasta run ahaantii wax yar qabta wuxuu ka hormari karaabaa qofka leh hibada badanaa run ahaantii ma joogteeyaan dadka hibada leh guushu
waa natiijo dadaal yar oo maalin kasta aad samayso. Casharka ugu dambeeya waa kan run ahaantii ugu muhiimsan. Qodobkeena 7 dhammee waxa aad bilowday. Hawshaad bilowday ka mira dhali. Magaca buuggan laftiisa waa muhiim. Waa fariin muhiima. Finish what you starting. Ha noqon qof leh run ahaantii boqolaal mashruuc oo midna dhammayn. Hal mashruuc dhammee, focuska saar. Kadib ka xiga bilow. Run ahaantii inaad hawsha fulishid waxay dhistaa run ahaantii kalsoonida. Kalsoonida run ahaantii waxay idin dhalisaa guul weyn. Haddaba waxaan soo gaarnay gunaanadkii mawduuceena. Saaxiibayaal, buuggani wuxuu ina barayaa in guusha aysan run ahaantii ka iman fikrado badan. Waxay run ahaantii ka timaadaa ficil joogto ah, is-edbin nafta self discipline, iyo run ahaantii dhammays hawsha aad qabato oo dhammaysid ood ka gungaadhid. Maanta isweydii, waa maxay hal mashruuc oo aan bilaabay laakiin aan weli aan dhammayn? Kadib go'aan qaado, ku noqo, dhammee, isku dayna hawsha dhammaysid. Maxaa yeelay dadka taariikhda gala maaha kuwa run ahaantii wax badan bilaaba. Waa kuwa dhammeeya, waa kuwa hawsha ay qabtaan ka mira dhaliya. Waa mahadsantihiin si fiican u dhegaysateen podcastkan. Haddii podcastka ku anfacay, la wadaag asxaabtaada. Waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.